boqorka hadda leeyahay hala ii soo caayo shalay markii uu boosaas kula taliyo ku yiri ka joog oo aad ka tala diiday oo aad darbiga madaxa la soo dhacday oo dhowr bax ilmadii aan kugu soo dhufteen kii inta shirka jira ila qabatay oo boqorkayga waxa ka codsanaya reer Puntland inuu maxaa kula dalka badbaadiyo nabadda ka shaqeyso kaas maaha meeshii uu maanta waa wiilkiisii baa tahay waxa weeye inuu dadka ka qabto rabaa meeshii baa u muuqata inaa ku socoto ka joog haduu ku yiri qaado isimada reer Puntland mid weeye haddii mid hadlo oo danta Puntland ku hadlo kaasaa matala isimada garowa ku shiray go'aan sax bay qaateen waa ayidsanahay waa taageersanahay January maalin hadday dhaafto warshiina culi wax kaga doonid waana iska ka qabanaya meel xilaan ku bixisa oo ilaa og yahay waa kula talinaynaa dalka iyo dadka u tur waan ku leenahay anu Puntland ba u turaya adiga ninka taan garanaya gidaarka ina iyo darbiga madaxa la soo dhicisaan ogahay adoo inta ka dulaysan kaliita taladu ay ka habowday ina marjac u soo noqonaysaan ogahay maanta waa kala muddo kordhin ma rabaa shantii sano muxuu qabanayay maalintii la doortay in farmaajo kala laaday in doorashadii Soomaaliyeed buu diidanaa in baarlamaankii buu maxaa ku lahaa Puntland dhacay in reer Puntland buu maxaa ku kala gurkooda dib u dhacooda ka shaqeynay in Xasan Sheekh Maxamed buu ku dhisay intaas uu ka shaqeynay Saciido waqtigaagii ala meel kale ku lumiyay waqti cusub reer Puntland kuma hayaan intii ka khasaartay oo ka lumisay ilaahay dambi dhaaf uga dhigo hormuudkii ummadda Soomaaliyeed baa la hadlayaa hooyadii federaalkan la dardaarmaya Puntland ee maqal istaba qabo inta goor tahay waa ku jeedaa haadaan baa kala lataa dagaal sukeeye baa la rabaa in lagu geliyo waa markii ugu horeysay ee tan iyo intii aan Mareykanka aan ka soo laabtay aan maqaaxida soo fariisto waxaan rabaa inaan ka hadlo muranka hareeyay doorashadii madaxtooyada Puntland go'aamadii ismadu soo saareen ee uu durba ganafka ku dhuftay madaxweynaha muddaxileedkiisii sii dhamaanayo Saciid Cabdullaahi Deni waa shiina culay oo ka codsanaya muuqaalka inaad sii share gareyso barteeda Facebook follow soo tiraahdo wixii aragtidaada ana aan qaybta commentiga ku cabirto horta anigu halka Deni waqti iiga lumimayo nima taqaano yaa tahay lama yiraahdo dhagihii waasanaya baa la waaniya ninka khayr kuma ogi waa ninkaan garanayno ilaa uu darbiga madaxa ku soo dhuftana kama soo joogo Saciido mid baa ku leeyahay isimadii xalay go'aanka soo saaray ee kula hadlay wartaladooda qaado haddii aadan qaadan wixii aasugtaa waxa la yiri qofka muuminka ah god laba jeer lagama wada qaniino waa la socotaa maalintii boosaaso ay kula taliyeen war ka joog ku dhaheen warin diyaana iska daa ee ka diiday waxa u soo noqotay marka gidaarka madaxa ku dhufatay dhowr dharbaaxo lagu la soo dhacay Puntland dhiiqa lagu u gelisay adigiina ku jirtay maanta tii ka xun baa ku socotaa waxaan ku leeyahay marka warinta sharafta leedahay sharciyada ku joogto dhowrka bilood ku labada bilood ku harsan tahay war dadka u hogo doorashadii u qabo hadii kale waxa ka hesho aniga waxba hayga sii dadka reer Puntland ma rabaa inaan halka kala hadlo intaana dadka la hadlin waxa rabaa inaan idin sheego isimada Puntland waa marjicii ugu dameeyay mar walba waa loo laaban jiray maamulka dhowr jeer baa muran hareeyay isimada lagu badbaadi jiray madaxdu waa u soo hogan jirteen waa dhaqan cusub oo ugu bah in isimada la gabar xooro dawladdu waxay isku dayaysaa dhaqamada dictatoriyiinta lagu yaqaanaa inay dadka kala qaybiso isimadii waa kala qaybsan yihiin war isimada Puntland hal mid meeshu fadhiyo iyagoo dhan waa ku dhan yihiin boqor burhaan baa ugu cuslaa ugu weynaa raggii xalay soo saaray war saxaafadeedka waa boqorkii daarood waana Saciid Cabdullaahi Deni raaskiisa waa ninkii qabashadiisa lahaa waa ninkii maanta ciddi godob ka tirsanaysa ay u galo fariisan lahayd boqor burhaan hadduu maanta sidaa ku taliyay hadalkiisa in wax laga soo celiyo maba ahaynba waa mare waana odaygii maxaa ku radaa Puntland waa mare waa ninkii Saciid qabashadiisa lahaa shalay siyaasadda ku soo gardaadiyay soo geliyay markii ugu horeysay xildhibaanku u bahalkaysmay marka yaa la idin majara habaabin oo isimaa kala qaybsan la idin ku sheekayne Puntland maanta intii ka naxaysa waa dareemi kartaa meesha ku socoto dadka waa u digayaan waa la dardaarmayaan war doorashadii inoo qabta Saciid Cabdullaahi Deni waa shakhsi sharciyad lagu doortay dadka dheer yahay waxba uga duwana hadduu sharcigii garan waayo haddii muddaxileedkiisii dhamaato waxa weeye waa nin walba siduu rabo u soconaya ummadana sharci baa kala xadeeye cidina shanta gacmood kuma kala baxdo dadka reer Puntland waxa rabaa inaan hal su'aal weydiiyo su'aashaas waxa weeye Saciid Cabdullaahi Deni dimuqraadiyadda uu maanta doonayo waritii uu farmaajo ka diiday maaha
ma mid ka duwan baa ma mid kuuriyada waqooyi ka shaqaysaba Saciid Cabdullaahi Deni waxa ugu badan oo uu maanta dadka ku kiciyo oo taageerada kaga helo waxa weeye Xasan baa la dagaalamaya Xasan ku la dagaalamaya kii uu shalay doortay miyuusan ahayn kii uu xildhibaanadii Puntland ku matali lahaa dowladda federaalka inagoo soo taagan intuu sidaa inoo ka boobo inoo gacan bidixeeyay oo Muqdisho intuu kala degay Xasan saa ugu riday Soomaha warmiyada aqli lahayn warmiyada fikirayn war dadkii in dheer garadka reer Puntland miyuu idin ka dhamaaday waxaan arkay Saciid Cabdullaahi Deni oo in badan ku doodaya xukunka reer baa haystay reerkii baa rabaa inaan ka soo celiyo dadka reer Puntland baa rabaa inaan u dhiibo isagoo reerka ula jeeda dadka oo ka dhashay Maxamuud Saleebaan Saciid waxaan u sheegaynaa war Maxamuud Saleebaan anaga dooran jirnay waxba nooga soo dhicin doorashadii noo qabo howlkii hala tago 66 ka xildhibaan Maxamuud Saleebaan 12 bay ku leeyihiin haddii shalay la dooran jiray ama doqoniinadayada ha ku dhacdo ama dan aan moodno maanta haddaan rabno cid kale aan dooranayna taladu sanduuqa iyo gacanteeda ha timaado noona soo dhig meeshaan kugu dhiibnay baan leenahay reer Puntland waxaan rabaa inaan weydiiyo Saciid hadduu jecel yahay inuu Maxamuud Saleebaan xaq ummadda kaga maqan uu ka soo celiyo oo uu rabo inuu Puntland cadaalad iyo garsoor ku dhaqo war Saciid waxaa weydiisaan war taliyaha ciidanka booliiska walaalow maxaa Ciise Maxamuud u siisay maxaase ugaga daba dartay kii daraawiishta shalay magacowday wasaaradaha eega ase maxaa iyaga u taxday haddii maaliyadda haddii arrimo guda tahay intaan doorasho la gaarin annagu gacanteeda waxaan ku goosanayno haba joogtee war qalinkaaga iyo dekreetada dadka ugu magacaabayso war ma noogu xaq soo weeday waxaa la yidhi nin fadhiga kugu arki waayey looma sala joogsado Saciid Cabdullaahi Deni oo maanta dadka reer Puntland dekreetadiisa ugu xaq soori waayey oo Maxamuud Saleebaanka uu leeyahay xaq ku maqan baa reer Puntland uga soo dhicinaya xil kasto wadanka ka jiray iyaga ku taxay haddii taliye booliis tahay haddii taliye daraawiishooda usbuuc ka hor magacaabay tahay haddii wasiirada eega ahayd oo maaliyadda iyo arrimaha gudaha ahayd war Saciidow waxaan ku leenahay doorashana anaga xaq noogu soo dhicin maysid waxa u socotay dabdamtaada dadka caqliga u saaxiib kale waa garanayaan reer Puntland cid dan u wado ma jirto raaskaagana ha ahaaday waxaad doonaysaa inaad muddada ku darsato waxaad doonaysaa Puntland inaysan kaa damayn waxaad doonaysaa waxa weeye meeshaas lagu soo liibaanay inaad kala dhantaashid oo dagaal isku yeerid ka joog baan ku leenahay ka joog baan ku leenahay waa ku digaynaa cidna wax yeeli maysid adiga sharafta iska qaadaya sharciga lagu doortay ku ciyaaraya berika maalina adoo inta ka dhooqaysan maxaa ku raada meel kasta laga soo dharbaaxay jugu kugu taalo dadka u soo hogan doona inta maanta goor tahay sharciyadaadi labada bilood ka hasan tahay war doorashada qabaan leenahay dadka reer Puntlandna taas ninka ha kula taliyeen waxaan rabaa dadka reer Puntland iyo Saciid Cabdullaahi Deni waxa arkaa iyadoo la isku lifaaqayo oo laga dhigayo Saciid Cabdullaahi Puntland ba inaysan ka horeyn kana damayn doonin war Saciid shalaynu dooranay halkaas ay joogto Puntland meel ka fiican buu ugu yimi wadanka intuu dhibaato u geystay ma rabo aan inaan hadda ka hadlo mana rabo inaan amaantiisa galo asalkeeda hadduu reer Puntland waxba u qabtay uu leeyahay Saciid oo taariikhda ku xusi doonta wixii dhaxal ee aad dadka uga tagto iyadoo aan cidina ka gaasirin waxna dheeraada lagu darin bari umadu iyada ku qiri doonta taariikhda adigu taariikhdaada gacantaada ha noogu qorin hana noogu yeerin waxaan idin leeyahay marka joojiya Puntland iyo Saciid la isku lifaaqayo Saciid Cabdullaahi Deni 8 bilood mushahar ciidanka ma siin Puntland maqaamka ay ummadda Soomaaliyeed ka joogtay markii hore iyo maanta meeshay ka taagan tahay waa la kala garanaya shimri maalin bay dad qaad dibaaleeyay maalintiina buulka hooyadeed bay gubtay Saciid Cabdullaahi Deni maalin buu dowladda federaalka inuu ku tartamaya Puntland wixii maal magac iyo mansab xildhibaan lahayd waa qaaday waa la soo kufo meeshuu dhigay waa ogtiin Xasan Sheekh buu inoo dooray maanta isagii buu dagaal kula jiraa Cabdullaahi Yuusuf Allah u naxariistay cadde iyo dadka jamaahiirta ah waagii ay Puntland majara u hayeen waxa weeye waa la socotaan Soomaali oo dhan Puntland saasay ugu indho kuulanaysi maalinta Cabdullaahi sharaxayna saasaa loogu ridayay maxaa keenay kartida maxaa keenay dadku waxay ka markacayeen sidoo Puntland u maamulay amaanadii iyo amniga uu u sugay kana maxaa loo dooran waayay waxa loo dooran waayay mahadnadii boosaaso ka dhigay baa la ogaa waxa loo dooran waayay sidoo dadka isugu leeynaya la ogaa waxa loo dooran waayay dastuurkii Puntland soo ugu tumanayo maalin baarlamaanka u weerarayay maalin sideed u cayranaya la arkay dictator Puntland dumiyay baa loo arkay sidaasa cid walba ummadda Soomaaliyeed markuu dhahay waxba doonaya ay laba cagood uga carabay
warninkaasaa idin hogaamiya ummadda haddaa saa ku socotaan reer puntland wala soomaali waa ka haraysaa war doorashadu waa wax sharci ah siciid laga baryimayo dadka sharciyad buu dheeryahay ma ka karti badna asad cismaan diyaaro baa taagan oo shalay uu 2 cod uga guuleystay oo sidii kula shaqeeyay guuleed saalax barre baa taagan oo ah ninkii dimuqraadiyadda tala soo dhisay xasan shire abgaal oo gacantiisii midig iyo wasiirkiisii maaliyadda oo shalay ninkii u ololeeyo kursiga saaray abaa taagan iyagii baa qaylinaya siciid muxuu dheeryahay waxba ma dheera waa niman ilma adeera waa siman yihiin doorashada uu galay iyo sharciyadaas uu dheeryahay hadduu sharcigii maanta ka talaabsado iyagu la mid noqonayaa waa la iska celinayaa meel cidlo ah buu ku soo dhacayaa ama meel xun buu ku baxayaa waxaa leenahay siciidow boqorkaaga ka xisho isimada puntland taladooda qaado duco iyo habaar bay maanta kuu joogtaaye war habaar iyo halaag ha dooran puntland hogga ku rid baan ku leenahay dadka reer puntland waxaan kula dardaarmayaa war dowladnimada puntland meel dheer baa laga keenay 2001 markii xabadu dhacayso kursiga la isku qabsanayay xaaladdu maanta waa ka duwan tahay maamulka haddii maanta qori dable la geliyo sida loo damiyaa waa adkaanaysa dowlad xoog leh Soomaaliyeed baa jirta Soomaali waa wada maamul waxa way maamul goboleedyo jira waa la tartamayaa meeshaas la idinka tagaya marka siciid iyo puntland bay maanta joogtaa siciid iyo puntland baa horeysay puntland baa culus war iyada inoo daaya siciid waxaan leenahay walaalkayo shalaa lagu doortay adoo inta ka tabar yar shil lacaga aan haysan guriga soo xaraashtay tawfiiq deen ka soo qaatay ninkii Soomaali ahaa uu Soomaaliland xoogaa kaaga keenay 600,000 intii baa ku soo baxday shalay maanta madaxweynaha tahay awoodaada la arkaa dalkii sida u baabi'isay wixii yaalay u qaaday iyo ina qoyska ugu taxday aan ka dhigtay waa loo wada jeedaa war doorashada gal nasiibkaaga halka ka qaad hadii lagu doorto oo sanduuqa aamintid oo halka soo dhigtid oo sidii caadada ahayd lagu doorto war waa lagu la shaqeynaya cid 5 sano ku soo socota ka khashkhashaysa ma jirto laakiin 8 January maalin hadday dhaafto warshiina culi wax kaga doonid waana la iska ka qabanaya meel xilaan ku bixisa oo ilaahay og yahay waa kula talinaynaa dalka iyo dadka utub baan ku leenahay waxba kaga fiicnid umada ina u xuntahay maaha waxa way nasiibkaaga iyo ilaahay calafku ku qoray iyo dadka reer puntland shalay ku doortay ba in diyaana dheeraatay war Cabdulle Maxamed Cali Gaas oo madaxweynaha ka horeeyay xafiiska fadhiyay ba wareegii labaad ku haray halka ku banjaray oo halka intuu samay iskaga baxay oo adiga dadka puntland ugu soo noqday oo kula taliyay oo aad taladiisi wax ka qaadan weeday yaa wax ka maqlaysa ma TikTok ka saa lagu wareejinayo waxa haysta horumar haysta war halaag bay waxa isku wada wada khaldan baa lagu wada ka joog baan ku leenahay anuu puntland ba u turaya adiga ninka taan garanaya gidaaka ina iyo dabiga madaxa la soo dhacaysaan ogahay adoo inta ka dulaysan ka liita taladu ay ka habowday ina marjac u soo noqonaysaan ogahay boqorka hadda leeyahay hala ii soo caayo shalay markii uu boosaas kula taliyo ku yiri ka joog oo ka tala diiday oo darbiga madaxa la soo dhacday oo dhowr dhulbax ilmadii aan kugu soo dhufteen kii inta shirka jira ila qabatay oo boqorkayga waxa ka codsanaya reer puntland inuu maxaa kula dalka badbaadiyo nabadda ka shaqeyso kaas maaha meeshii maanta waa wiilkiisii baa tahay waxa weeye inuu dadka ka qabto rabaa meeshii baa u muuqata inaad ku socoto ka joog haduu ku yiri qaado isimada reer puntland mid weeye haddii mid hadlo oo danta puntland ku hadlo kaasaa metela isimada garowa ku shiray go'aan sax bay qaateen waa ayidsanahay waa taageersanahay siciidow sharci darrada jooji ku badalo ku soo dhig maxamuud Suleymaan haddii cidi puntland ka qabanayso shalayna anaga dooran jirnay maanta 66 ka xildhibaan dadka kagama badna annaga cidaan rabno dooranayna laakiin miiska talada soo saar saasan ku leeyahay haddaad diido dhayhi waa samaa waa sida wixii aad ka hesho aniga waxba hayga siin waa shiino culi oo reer puntland marka la kula dardaarmaya war doorasha meesha tan waa in xilligeedii la qabto 8 January Siciid Cabdullaahi Dani waa inuu doorashadii qabto shalay baa loo idmaday waxa la yiri isaga barnaamijkiisa ku jirtay dimuqraadiyad baan idin gaarsiinaya 5 sano baan idin ku gaarsiinaya buu yiri maanta waa kala muddo kordhin ma rabaa 5 sano muxuu qabanayay maalintii la doortay in farmaajo kala laaday in doorashadii Soomaaliyeed buu diidanaa in baarlamaankii buu maxaa ku raay bud la dhacay in reer puntland buu maxaa ku kala gurkooda iyo dib u dhacooda ka shaqeynay in xasan sheekh maxamed buu ku dhisay intaas ka shaqeynay siciido waqtigaaga ala meel kale ku lumiyay waqti cusub reer puntland kuma hayaan intii ka khasaartay oo ka lumisay ilaahay dambi dhaaf uga dhigo sanduuqa u soo dhig
doorashadii hala galo 66 xildhibaan hala galo halgu galo sideedii halgu galo cidii ay doortaan adigana Allah ka dhigay waxa way ku qanacsanahay wax ka hooseeya iyo wax ka sareeya oo aan yeelayno ma jirto taasaan ku dardaarmaya wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh